way jiraan dad badan oo laga joojiyay iyo kuwa laga joojin doono iyo kuwa cusub oo la qaadan doono iyo wax kasta way jiraan. maayarka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi Cabdirasaaq Hero oo qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa sheegay inay gabi ahaanba shaqadii ka joojiyeen 39 qof oo ka mid ah shaqaalaha ay dawladda hoose ee degmada Burco gunada siiso. horta dadka dawladda hoose waa xarun dawladeed shaqaalaha u shaqeeyana waa shaqaale dawladeed goob kasta oo shaqaana waxay leedahay nidaam ay shaqaalaheeda ku maamulato waana wax iyada u gaaro dhexdeeda xisaabta shaqaalahana iyaga gudaheedu u yaala shaqaalaha dawladuna waa laba oo dawladda hoose ka shaqeeya ama deen gurnada anagu siino waa kuwa toos noo shaqeeyada shaqo noo qabtay iyo kuwa aanu kala shaqeeyna laamaha kale dawladda wasaaradda caafimaadka aday tahay wasaaradda waxbarashada iyo hadii yihiin kuwa kale la halmaan marka wax internal issue oo madaxa shaqaalaha iyo waxaan ku xogayaha iyo shaqaalaha gudaha dawladda hoose xisaabta kooda u yaala qofka u shaqeeya shaqadooda billaha sida kula xisaabtamaya wax gudahooda hadii mushaarka laga joojinayo hadii meel kale loo badinayo shaqada laga joojinayo habraaca shaqaalaha loo raacay xeerka shaqaalaha marka kaasuun baa jira wax dhibo kalena ma jiro waxa lagu haysto qofka iyo aniga laftayda ayaa waxaan ku kamid ah shaqaalaha dawladda marka cidii kasta waxba la iska weydiin karaa shaqaalaha dawladda cid gaar ah oo la leeyahay wuxuu la bartilmaameedsan ama qof shaqada laga joojiyay qof kasta oo loo baahdo shaqada laga joojin karaa marka wax laga garan waayay shaqadiisa qof kasta oo shaqaalaha dawladda hoose ku jira iyadoo habraaca shaqadiisa loo raacayo laakiin wax kale oo meesha ka jira oo kale dhiba waa goobaha shaqadu bay la mid in qofka shaqaysa waayo ama shaqada laga joojiyo ama qofka shaqadiisa loo bedelo ama la kala bedelo ama la dalacsiyo waa habraaca xeerka loo raaca way jiraan dad badan oo laga joojiyay iyo kuwa laga joojin doono iyo kuwa cusub oo la qaadan doono iyo wax kasta way jiraan habraaca shaqaalaha marka loo raacayo gudaheeda waa internal issue wax u baahan ma aha inuu laga leeyahay dawladda hoose ma Kamaal Xaaj Cabdiraxmaan wararka telefishinka caalamiga ee Sahan gudaha xarunta maamulka gobolka Togdheer.